بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة هوينك وهرمونية qoyska مسؤولينك وزارة هوينك وهرمونية qoyska xildhibaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka oo sidii ay ahaan jireen iyo marti sharafta xildhibaanka xildhibaan Saciid Surcad golaha wakiilada dowladda Puntland halkan waxaa jooga dad runtii aad muhiim u ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaantiin haday tahay looyaro haday tahay culimo haday tahay hooyooyin haday tahay baarayaal dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii barnaamijkan maanta halkan galabteen isugu nimi oo si wada jira usoo wada abaabuleen wasaaradda haweenka iyo hay-adda xuquuq aadanaha Puntland wuxuu ahaa mid aan doonaynay in maaragtay bulshada aan kula wadaagno oo aan fursad ku siino bal in dareenkooda ay ku darsadaan barnaamijkan ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta qoyska iyo dhammaan guud ahaan howlahaas oo dhan wax kale ma aha had iyo jeer waxa weeye dowlad hadlaysa mas'uuliyiin hadlaysa ayaa la arkay aad baan u faraxsanahay inaan fursada siino bulshada qaybaheeda kala duwan inay iyaguna dareenkooda iyo sidii wax u arkaan iyo haddii kaleeto anaga muraayada markaan isku fiirin ilaaha kaliya isu aragnaa marka waxaan rabnaa dad iyagu markay na fiiriyaan waxay noo arkaan noo sheega oo yiraahdaan idinku saasaa tihiin waxaasaa idinka dhiman waxaasaa qabateen waxaasaa maaragtay loo baahan yahay arrinta kale oo muhiimka waxay tahay iskaashi golaha kan ama maaragtay shirkani waxyaabaha uu taabagelinayo ama uu horseedayo waxaa ka mid ah in bulshada iyo dowladdu ay yihiin dad isku wada dana dad inay iskaashadaan loo baahan yahay dad hadday maaragtay arrimaha wada khuseeya ay ka wada hadlaan ay fududaanayso in xal laga wada gaaro laakiin ninba gooni hadduu keligiis hawl u wato ama ay maaragtay qolo kasta qorshe ay samayso waxa weeye waxaa laga yaabaa in maaragtay hadafkii aan wada gaarin marka waxa weeye si hadafka si fudud oo awoodna la isugu geeyo loo wada gaaro waa in isku doon la fuulaa waa in isku aragti laga wada noqdaa waxyaabaha loo baahan in la horumariyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xorriyaadka asaasiga ah waa arrin ballaaran oo qaybo kala duwan yeelanaysa laakiin waxaan tusaale ka soo qaadanay waa caruurta xuquuqda haweenka xuquuqda dadka la haybsooco iyo xuquuqda saxaafadda sidoo kale iyo xorriyaadka asaasiga ah baan tusaale ahaan usoo qaadanay taas macnaheeda ma aha inay intaa ku kooban tahay xuquuqu waa badan yihiin waxayna qaybo kala duwan oo ah maaragtay xuquuq bulsho xuquuq dhaqaale xuquuq bay'ad xuquuq siyaasadeed xuquuq maaragtay nololeed qaybahaas oo dhan baa jira marka lama soo koobi karo laakiin marba qayba waxaa laga yaabaa inay asaasi tahay in la helo loo baahan yahay arrinta loogu bilaaba carruurtana wax kale ma aha hadda jiil waxa weeye jiil hore hadduu wax ka khaldama carruurnimadu wax kaga khaldamay haddii jiil dambe la filahayana meesha wax looga bedeli karo waa xilliga carruurnimada haddii la rabo in dad cusub dad la soo saaro xuquuqdooda fahansan xuquuqdooda ilaashan kara loona ilaalinayo waa in jiilka laga hadlaa carruurta maanta joogta berita iyaga ah waxay mataqaana dadka jiilka cusub oo ummadda tan hagi doona saa awgeed carruurta ayaa waxaa loo saaray fiiro gaar ah aad baan uga masquuday talooyinka aragtiyada kala duwan ee halkan laga soo jeediyey mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda qaybaha bulshada dadka matalahay dhammaan aad baa ugu mahadsan tihiin kolley wasiiradaan siin doonaa oo waxaan rabaa inaan iyadu wasiiradaan hawshaas u dayn doonaa marka haddaan su-aalihii kolley way badnaayeen dad badan baa ka jawaabay laakiin hal su-aal baa moodaa in xoogaa ifraax ay halka iga dhowrayso ay tii muddaa ku sugay waxaa weeye arrinta ah gabdhuhu intee in la eg baa lagu matalaa golayaasha dowladda intee in la eg bay helaan maaragtay ka qayb qaadashada talada dowladda laakiin su-aashu waxaan ka fiirinahayaa waxaan gelinahayaa position meesha istaahisho ayaan gelinahayaa 30% keliya maaha 30%ka laga hadlaayo ujeedada u leeyahay waxa weeye in talo iyo go'aanka iyo ka muuqashada ay wax ku yeeshaan soo saama ifra ifra 30% xaga ku qoran
مقرنا أفكار كشيء أنا أنت بس ما constitution كان درافت ما يفرع constitution كان ولا أنسعي وحلو هذا أفتي وهكذا كل شقينا constitution كتير بس تبغى كجفتو وفراسة كأول ما هي وكوسو كفدرال هو هين كلو إنك تمانتي كنت لك شقينا لا فدرال وزارة أول كنتين دونا لكن أقول شيء يا أنا تيجي بس أنت شيء بس 50% أنا ما أقدر هنا كم ضربنا أنا ودقالنا وحوي سنة كعاد لنا وحوي وحيابها أوبضا وأوبرين وحوي سيدي قبلها ترون ويا مهاين هيقولياش الدولة حافظك human rights كهو ريو 50% وقبلوه 10% iyo 25% iyo wax lamid ah waxa mudaqabiba hoos dhigayaa annagu meel ka sarreysa ayaan dhamaantii gaaraan annagu waxaan qorsheynaa inay noqdaan dadkii talada wax laga weydiin lahaa oo runtii hadda waxaan si dara in baarlamaanka ay ku jirto loo gabdho waa arrin dhacday oo runtii aan waxa weey marna la aqbali karin way jirtaa laakiin ma aqbalayno وأنا أقرأ وحنا ما نقرأ في بوتي ده إني كسوق عليه ما في نهاية وحوي أنت نبتة وحي تهاي ماشي تمحلو بعيا سيدي وحى عن كهل السياسة لو بدك هنا وحى عن دولتك رح تونينا إني صوب على السياسة أو لو شقينا وهذا وحقنا هاي محكمة دي إلا جاب مال مريو هذا تاني بس إنت كسمتها المقريني لكن إلا هذا وحنا تعمل كرماء وأنا وزير كوي جوكتا وأنا لقاها الدورة runtii arrintaas ay ka badanba in gabdhaha loo qareemay xaq u leeyihiin xaq uma laha in 10% lagu celceliyo iyo mataqaana wax la mid marka wasiiradaas si doona aad u haysantiin المثلا الدولية وساعدة أنت وزيركم تجواب سؤال كله وساعدة هوانك وحي سعودة كل تجودها قبل هذا البطلان هذا sidee xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta meelaha aad tagteen mase soo bandhigi doontaan waxa ka jira ee dhabta ah waa mahadsantihiin labada su'aalood baa wasaaradda haweenka la weydiiyey mas-uuliyiinteeda waxaa ku hormaraya oo si farxiyo oo ka hadli doonta 10% iyo 20 la sheego inta badan bismillaahi rahmaani rahiim wasiirka wasaaradda haweenka وزيركين وزارة البيئة الجبانة أقوياء الأمان كسوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شيء فرح الويديسي أخبارك وحقيقتي قبلها لو حيث صدقة كنت بها كورس بالله درافت عام وقرا بقول كيلو 4 كورس بالله لو قندي قالوا ولي توبة صدقة ولبا توبي وقبلها صدقة لله مسيحي واللي صدقة صدقين من المسيحي نتينا ما عنا عيال صدقة وحوي بوها وقوميتنا نكون ساعتنا يسوي ضد كل ساعتنا إلا لك بيان حيبوتها دولة العراق أفريقيا توبي جالسي بدلنا السلام جالسي لواتنكي أنت لما يبغى معنا إن كونستيوشن عام وضع عدايو وبدلنا هذا لواتنكي لغدا بيان صدقي سوماليا أنا بدها ستة كل لواتنكي أيوة كدولنا صدق اللي قالنا لأن أنا صدق لواتنكي وريني تصور كنا هون أنصحني لواتن بعد ما كاس عن قندة هاني لكن ما قدرين ولا ما أنصحني تعال لغدا بيان وين كجبتها البروسيس وين كجبتها سيدا الشيء حق وحاولنا مواطن بدلنا وكلام قندة ملل لكن قندة داس لغدا ما يسوي مركي لا وحين لكن بدلنا تسوق الشيء مواطن هذا مواطن هذا ما أنا قلنا كلمة وحيد أنا لا يرى كلمة ممكن مركه وحول يتعامل هذا كتبنا بجلا إنه وأنا دلالة إذا تمام إنه قوة ومتدرك عن سعيد هذا شيء دولته وينه أقصى ودول لكن dadkii aawo la sheegi lahaa dawladda gabdhihii waa hurdaan waxbaa naga maqan waa leeyihiin hurdada inay ka kacaan wasaaraddu ayaga maandeedkooda wadaa inay u qareento inay arrimahooda socodsiiso laakiin yaa u qareena wax socdoo ma aragnay gabadhii hadashaa waxay leedahay wax kale ee loo joogo dagaalaa jira haddii lahana waxbay kurayaan marka waxaa loo baahanyaa waxaasoo dhan danteena inaan
markaan aragno dad soconaya wax soconaya haddana aragyaan ka galna afartayada golaha wasiirada ku jirtana waxa weeye dadkii aan socodsiin lahayn ma hayno gacan kuma hayno run haddii la rabo marka waxaa laga rabaa gabdho inaad meesha ka kacda macnaha ka kaca markaan dhahayna siduu siciida sheegta ma aha inaan diinta islaamka ka baxno dad islaamna maxay dhaqan galbeed oo wadno waxaan ka hadlaynaa waa dhaqankeena burburay see u hagaajinaa dalkeennii ilmaheenii daryoolkoodii horumarkeennii see uga qayb qaadana waxay ila tahay jawaabta intaas waa iifilan way mahadsan tahay farxiyo halkan waxaa naga soo weydiiyey su-aal taasoo ah gabdhaha u baahan siyaasadda inay ka qayb galaan xageebay kusoo hiran karaan ama ay maaragtay imaan karaan si ay uga qayb qaataan siyaasadda dalka horta waxaan dhihi lahaa magaalo dhan oo wada suuq ah oo qof wax ka gata qofka kale uusan jirin dhibkeeda ay leedahay dumarka oo dhanna siyaasaddii kama wada qayb qaadan karaan way kala duwan tahay horumarkii dalka dhaqaalihii baa jira waxaan ku dhahay caafimaadkii baa jira horumarintiisii ganacsigii baa jira ayada laftirkeeda inaan u aragno 20% inaysan ahayn siyaasadda keliya ee ay tahay social sectorska oo dhan ama arrimaha bulshada oo dhan waa lama maarmaan laakiin waxaan dhihi lahaa waxay kusoo hiranayaan wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska taasoo ah hooyada u fadhida dowladda puntland isla markaasna u helan inay gabdhuhu soo gaaraan meel fiican waa rajeynayaa su-aal kale inaysan noo harin warqadan kale weli maaakin waxaa yidhi waxbarashadii gabdhaha in loo soo saaro ay waxbarashada ka qayb qaataan waa lagama maarmaan soo muhiim ma aha inay gabdhuhu waxbarashada galaan wasaaradduna ay ku taageerto laban baa siinaya su-aashaas way mahadsan